maamulka macallimiinta iyo ardayda quruxda badan ay ku salaamaya salaanteena qaaliga islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaanka bacdi maadaama aan baahdi caafimaadka aan ka mid ahay waxaan insha Allah idin soo jeedin doonaa talooyin oo ku saabsan xiriirka ka dhexeeya caafimaadka iyo mobilka isticmaalka mobilka. inta badan waxaynu ogsoonahay bariyahan dambe in ciyaalku mobiladu aad ugu badan yihiin, waalidiintii mobilada u dhiibayaan, way isticmaalayaan. marka taasina waxay keentay saameyn muuqata oo badanaa ciyaalkeena ka dhaxarino. saameyntaas aan marka insha Allah iyadoo aad u badan ayuu insha Allah saddex qodob ayuu insha Allah ka eegi doonaa. koowaad ugu horeysa waxay tahay ilmihii waxaan ku arkaynaa isagoo aan gaargaarin baa indhalaan oo indhihii baanu si fiican waxba uga arki karay, casharkii baanu akhrin karaynin, wixii loo soo dhigay baanu waxba ka akhrin karayn. taasoo markaa ku keentay saameyntaasi mid ka timi xagga dhinaca waalidka ka timid. وولدك هذا waxay sameeyaan bilbeta tusaalaha kale hooyada waxay sameeyaan kale inay soo qabsato awleedii barnaamijyada markaa soo qabsato kabacdi ilmihiisa waxay u dhiibaysaa telefoonkeedii u dhiibaysaa. taasoo markaa keenaysa in ilmihiisa markuu la waxa waa ilmihiisa koraya indhihiisa koritaanka weli ku jiraan garoobka ku jiraan. marka waxay keenaysaa markaa ilmahaas in ilmihiisa uu dulqaadan kari waayo isticmaalkaas mobilka uu isticmaalayo. waa talabaad faham la'aan baa ka dhalata oo isticmaalka mobilka inuu loo dhiibayo aan weli qaangaarin waxa ka dhalanaysa faham la'aan. fahamkiisa baa hoos u dhacaya oo tusaalahaan kale ilmaha wuxuu daawanayaa oo kaliya wixii hooyadii daawanaysay oo waalidkii waxay daawanayaan iyo ilmihii waxay daawanayaan isku mid mararka qaar maaha maskaxda u tarjumayso. waxaad arkaysaa marka ilmaha waxaa daawanaya inuu hadhow xitaa ka dhalato saameyn oo imika badan aan aragno oo ah dhaqan xumo. oo waxaad arkaysaa ilmo yar oo aan jirba gaarinba oo suuqa dhexdiisa wax ku caay aflagaado sameynaya. waayo maxay taas ka timid? caydaas wax kale meel kale kama imaan, waxay ka timid waa ilmaha yar markaa loo dhiibay mobilka ee baraha bulshada kala duwan sida hal ku bandaantimo TikTok iyo waxaan hadda barnaamijyada kale aan isticmaalnay ee loo dhiibay ilmihii. TikTok ku soo daawanaya marba wareejinaya ilmihii waxaad arkaysaa markaa isagoo wax fara badan cay badan wax badan ka bartay. marka ilmihii waxaa lagu khasbaya markaa inuu markaa macadkii ama dowladadii oo kala yimaado dan hadhow ilmihii waxaa loo dhahay ilmahan meesha waxba kama fahmeeye aan meel kale geyso. meelkaas fahmlaantaas kama imaan, meesha kama imaan iyo macallimiinta markaa maamulka xulliga kama imaane waa mid adiga kaa timi iyo barbaarinta markaa mobilka aad u dhiibayso. marka waxaan isku korinaa insha Allah nafteena marka iyo nafihiina inuu insha Allah ciyaalka aanu ka yareyno isticmaalka mobilka isticmaalaya aanu ka yareyno oo wax kale ugu bedelno oo markaa faa'iido aan ugu bedelno insha Allah. markaas insha Allah kusoo joojinaya waayo goor gaaban waxa la yiraahdaa keedna gaaban insha Allah markaas ku joojinaya dad baad jeedin